burburkii dowladii dhexe ee Soomaaliya waxay galaafatay qaab dhismeedkii duulimaadyada rayidka ee dalka. Somali Airlines waxay ahayd diyaarad astaan qaran ah taasi oo u kala gooshi jirtay dalal kala duwan sida Yurub, bariga dhexe iyo qaaradda Afrika. Muqdisho Aviation College waa macadkii ugu horeeyay ee laga furo magaalada Muqdisho kaasi oo lagu barto arrimaha hawada, maamulka garoomada iyo amnigiisa, maareynta iyo sidoo kale cabin crew-ga. Nasiib Maxamed waxay ka mid tahay ardayda dhigata macadkaas. Bilan Media ayay uga warbixisay waxbarashadooda. waxay ku dhaliyay maadaama dalka looga qabo baahiyo saaid ah maxay aviation ka hadda loo Soomaali hormarooya anakana waxaan ahay dadkii hormari lahaa wallahi markii laga soo gudbo kadib casri jaahiligi gabdhaha waxay sayid u hormariyeen waxbarashada waxaan ka wanaagsanahay dhanka wiilasha soo way barkaraan wayna ka hormari karaan wiilasha saaideen ugu duwantaa sababtoo ah gabar waxbarata waa bulsho waxbarata saa hor u sheegay baahiyaha dalka loo qabay iyo anoo oo awalkii hore tabarjeenay pilot laakiin still pilot dalkeena ma uusan helin laakiin waa gaari doonaa heerkaas aan hadda waxaan bartaa aviation waxaan tababaradu aadnaa eelboorka aadan cadde. Yaxya Maxamed Saciid oo ka mid ah maamulka macadka Muqdisho College ayaan weydiinay ardayda ay waxbaraan qaabka ay u helaan tababarada garoomada. jaamacadda waxaa ka qalin jabisay in ka badan 300 oo arday kuwaas oo kala bartay culumta kala duwan ee hawada sida maamulka iyo maareynta guud ee garoomada diyaaradaha, duulimaadyada diyaaradaha iyo hagidooda, sidoo kale dadka diyaaradaha la shaqeeya hosteska, gabdhaha diyaaradaha gudaha ka shaqeeya iyo sidoo kale amniga guud ee airportka iyo diyaaradaha aviation security-ga. mostly aviation-ka waa course aad u muhiim ah oo loo baahan yahay wadankeena ku cusub. sidoo kale inoo jirto baahi badan oo dadkii airlines-ka ahay u qabaan ardaydaas. So mostly ardayda meesha jaamacadda Muqdisho Aviation-ka qalin jabisa waxay fursado ka helaan airportka iyo airportada kale ee gudaha dalka. haweeneydii ugu horeysay ee Afrikaan ah ee diyaarad duulisa waxay ahayd gabar Soomaaliyeed oo lagu magacaabo Asli Xasan. sanadkii 1976 ayayna ku biirtay duulimaadyada. Farxii Muraad, Bilan Media, magaalada Muqdisho.